ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo weeliyaan wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa xalay saqdi dhexe waxa uu kormeeray isgoosida 9 degmo oo kamid ah gobolka Banaadir si ugu kuurgala sida u socdaan howlgalka xasilinta amniga magaalada Muqdisho ay wadaan ciidanka isku dhafka ah. ra'iisul wasaaraha xukuumadda ayaa kormeerkiisu waxa uu bilowday 12 habeenimo ama 5 saac oo habeenimo xilliga magaalada Muqdisho waxa uu kormeeray isgoosida degmooyinka Wadajir, Howlwadaag, Warta Nabadda, Cabdicasiis, Shangaani, Xamarweyne, Yaaqshiid, Waabari iyo degmooyin kale kuwa oo ay dhammaan howlgalo ka wadeen ciidanka isku dhafka ee xasilinta amniga magaalada Muqdisho. ciidanka ayaa istaajinayay gaadiidka ra'iisul wasaaraha oo si kadis ah ugu tagay iyagoo hubinaya qofka wadata iyo aqoonsiga lagu cadeyn kara shakhsiga wata cidda uu yahay gaadiidka. ra'iisul wasaaraha ayaana abaalmarino ku dhiirigelinaya ciidankaasi siiyay difaacaya sharafta iyo ammaanka dadka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa isgoosida qaar kula kulmay dad shacab oo badna dhalinyaro isagoo weydiinaya xaaladda amni ee xaafadda ay degan yihiin. halkan waa iska tarabuunka uu ra'iisul wasaaruhu si caadi ah ula sheekaysanayo dhalinyaro ku caweynaysay halkaasi. ujeedada kormeerka ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ugu tagay xalay ciidanka ayaa ahayd u kuurgalida iyo niyad dhiska ku aadan in madaxda dawladda ay ciidanka habeen iyo maalin u soo jeeda ammaanka magaalada Muqdisho ay la qaybsadaan soo jeedka iyo inuu wax badan ka ogaado xiriirka bulshada iyo ciidanka u dhaxeeya taa oo muujinaysay inay tahay mid aad u sareysa. isgoyska Sanca ayuu ra'iisul wasaaruhu kula kulmay dhalinyaro banooni xilligaas ku ciyaaraysay aan dareemaynin khatar amni aad nagu faraxsanaa howlgalka ay wadaan ciidanka. ra'iisul wasaaraha ayaana si caadi ah dhalinyaradaas u xog wareysanaya waa kan. يا جرنا أنا خير Soomaali زيتي بيعدي ما شاء الله ما شاء الله حافظ الدار ما معديش السلام عدي حيدنا نقول قاني معه قرب جينا الله قضى إن شاء الله يلا علي الدلكين إن شاء الله إن شاء الله يا وريا السبت لا غادر ده ثانية ما شاء الله هذا الذي وين يا ريت وفين سوي يا أبو حريف منو يا ريت نعم شو سامي kormeerkan uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya uu kuurgalayo sida u socdo howlgalka xasilinta amniga magaalada Muqdisho ayaa qayb ka ah qorshaha lagu dhiirigelinayo ciidankeena geesiyaasha ah si ay ugu guuleystaan ammaanka dalka gaar ahaan magaalada Muqdisho oo muraayad u ah dalkeena ammaankiisana laga qiimeynayo hadba sida uu yahay. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho.